السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر بعد كريدة عالمية الاتصال كورس يعني ميديكال تكنولوجي عشر كيسدحاد ما أنت وحنا قادم طرنا دي الله سبحانه وتعالى أود اللي قدره وحلي هذا combining vowel or form هروح نصبرنا وحلي هذا combining vowel أو حرف كأو أسوأ شقة بدن قبته عشر زورة دي بأمي العسنة وحوها إنه قبته شقة بدن أو إنه سحر الله ودرود أما نسكحر ودود تسافر سنة بحيره يعني عشر كان مركا بين واتو وحول حياة مركا شقة قبط رأسه شكنا أو إنه كرح شقيه إنه سكحر أدي إذا سافكس مركا هدي قدر جروبي جنس وسو قبل على الفاول شغل ABC أما لغة إنجليزية كوا A-E-I-O-U هدي متك سافكس كوقبل على don't use combining vowel ها استعمال أو كني هدي خلاص قدام بيسو يجي صالحان gastro waxaa deal lahowa oo u dambayso yani waa goorme marka rabno combining formkiisa waa gastro maxaa sameynaysaa marka balas itis ha ku daran owdu waa iska jaraysaa sababtu maxay tahay itis hadda waa inflammation caabuq oo marka waxaan la rabo marka caabuqaas la sheego itis la isticmaala maadaama gas in la sheego calool xanuun in la sheego ama caloosha xanuunka cudur xanuunka caloosha deal in la rabo in la sheego lama isticmaala marka combining formki oodi waa tuuraysa sababta maxay tahay saafikiska gadaalgaluhu ayaa waxa uu ka bilowdaa shaqalada mid kamid sida darteed waxa yiraahdaa gastritis waa gas calooleed ama caloosha cudur ku dhaca gas ku dhaca not gastroitis ma dhihi kartid arjina inay fahamtay mar waa lagu ogol yahay hadii consonant ka bilowdo laakiin waa goorme waan arki doonaa hadii marka labaad shaxda labaad hadii saafakis gadaalgaluhu beginnisu ka bilowdo consonant banayaasha duu ka bilowdo use isticmaal combining vowel sida intro oo intestine oo soo dambayso marka rabtin ay sheegto xanuunkaas mindhiciraha haya waa intropathy oo mindhicirada iyo wadooyinkiisa iyo waxyaalaha dhexmarayay oo xanuunka dhaca waxa la yiraahdaa intropathy marka not interopathy hadeen intropathy sababta maxay tahay saafkiis waa ka bilowdaa consonant hadii haddana when two words markay laba xidood are there in a term markay hal ay isku jiraan the combining vowel xarafka o is kept ayaa la ilaaliyaa between into the two word roots labada xidid even xitaa if the second root hadii rootka kale beginning ka bilowdo vowel aan dib ku celiyo shuruucii hore wuxuu ahaa saafkiiska هذا waxa isle root iyo root waa isleeyihiin yani same thing laakiin suffix iyo root way kala duwan yihiin sida awgeed di suffix ka bilaabanaya shaqal waa jaraysa combining vowel laakiin hadii root iyo root bay yihiin waa isticmaali kartaa even xitaa haduu ka bilowdo consonant okay gastro waan haysanaa oo root iyo intro root sida awgeed waan isticmaalaynaa marka gastro marka oo hado gastr intro marikane why waa root gastroenterology wakasamar gastroenterology maxay tahay marka waa barashada xanuunada ku dhaca caloosha ay xiriirka gastroenterology okay basic combining form erayadan waad xifdinaysaa hadaa rabto inaad master ku noqoto qof ku fiican noqdo adino meesha ku maqasho waa galaanda qanjir hadii marka caafimaad rabto kan lagu ma sheegayo maya arthro waa jointisyada bio waa life nolol carcino waa carcinos ama cancer weeye carcinoma cardio waa heart wadne cephalo waa head madax cerebro waa nooc qaybta kamid maskaxda siso waa tukatin wax la jiro crino waa secret qan soo dhiijin cysto waa bladder ka adeysta cysto iyo cysto waa cells node dermo waa ama dermato waa skin maqaar electro ama electricity waa danaweyn encephalo waa brain intro waa intestine oo small khaasatan electro waa red gaduud gastro waa stomach caloosha noso waa knowledge cilmi gyneco waa woman or female hemato oo hemo waa blood dhiig hepato waa liver itro
waa treatment ama physician dhakhtar. Leuko waa white cadaan. Logo waa study barasho. Nephro waa kidney keliya. Neuro waa nerveyaasha. On tumor waa buro. Ophthalmo waa eye isha. Osteo waa bone lafta. Patho waa disease. Pedo waa child. Psycho waa mind. Radio waa x-ray. Rhino waa kidney. Rhino waa nose sanka. Sacro waa flesh. Sacro flesh waa macnaheedu waa hilibka marka ama jirka qofka. Okay, secto waa tukad in wax la jaro. Siso iyo secto waa isku mid. Thrombo waa clot ama clotting xinjireen. Uro waa urinary tract ama urine kaadi. Suffix cashirka loo noqon doona muhiimadiisa gaarka wax xambaarsan yahay mid walba shuruucdiisa ilaali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.